how to study anatomy sideed u baranaysaa ama aad u baran kartaa anatomy approaches in learning gross anatomy approaches ka markaas aad gross anatomy aad u baran karto dabcan gross anatomy waxaan u leenahay kuma jiro microscopic iyo developmentalki oo soo sheegnay microscopic waxaad ku baran kartaa histology iyo cytology aad hore u soo qaadatay halka developmental embryology aad ku qaadan doonto ama aad ku qaadataba marka gross anatomy-ga ayaan ka hadli doonaa sidaad u baran karto waxaad u baran kartaa midda koowaad waxa weeye by regional as regional ayaad u baran kartaa qaabka labaad oo baran karta waxa weeye by systemic ka saddexaadna waxa weeye clinical oo in marka laga hadlo correlations ama cudurro laga hadlo markii qayb laga hadlo in cudurradeeda lagu daro qaarka ugu muhiimsan dabcan ayaga la ugu dari karo marka regionalka aynu ku bilaabaynaa regional approach studies the anatomy of the body by regions or segments ayaa loo daraasiyaa marka regional anatomy waxa anatomy loo bartaa si oo regions qayb ama segments the human body is classified into 8 regions waa lagu kala duwanaan karaa meelaha qaar 4 regions arki doontaa oo qaar la isku dari doonaa laakiin 8 regions anaga hadda separate aan kala dhigay head gooni ayaa loo bartaa neck thorax oo xabadka back oo dhabarkii upper limbs oo adimada kore gacmihii laga wado iyo lower limbs ko laga wado adimada hoose oo lugaha iyo abdominka oo xaloosha pelviski oo qaybtan pelviska simaha iyo ama miskaha iyo perineumka this is the most preferred approach in medical schools regional waxa weeye waa most preferred approach yani kullada caafimaadka inta badan qaabkan ayaa la qaatay oo fiican for studying anatomy in anatomy lagu barto since it takes the whole structures of the region of the body irrespective of the systems yani qaabkii tusaale ahaan kal abdominka xubnihi ku jira dhan baad wada baranaysaa laakiin haddii system ilaa systemyo badan ay abdominka soo wada galay marka system walba qayb ka tagaysa maalin walba markii aad hadba qayb ka tagi lahayd oo meel qusayso hal meel wada marka waxa la qaatay in hal mar la wada dhigto abdominka waxa ku jira dhan irrespective of its systems qaabkaas ayaana wanaagsan kan labaad waxa weeye studying regional anatomy helps us to appreciate the interrelationship of the body structures inaan u barano anatomy-ga marka inaad u barato regional waxay ka caawinaysaa inaad appreciation siiso interrelationship of body structures shaqooyinka ama interrelationshipka isku dhawaanshaha ama si kalaba interrelationship uga dhaxeeya qaabka ay marka interrelationship uga dhaxeeya ama xiriir uga dhaxeeya structure-da jirka bini'aadamka such as how muscles, nerves, blood vessels and other structures work together to serve a particular body region. Okay? Si marka maxaa la lahaa nerveska iyo murqaha iyo nerfayaasha iyo blood vesselska xididada dhiigga iyo structures kale ay ka iskula shaqeeyaan si u qabtaan shaqo gooni ee meel gooni laga sameeyna. Each region is not an isolated part. qayb kasta jirka kamid ma ahan isolated ama meel go'an ma ahan oo gooni u go'an must be put into context of adjacent region. markaana waa lagu daraa oo marka conceptiga lagu daraa qaybta adjacent-ga la marka laga hadlayo of the body as whole jirka si guud ahaaneed marka in loo fiiriyo surface anatomy is an essential part of regional approach waa qayb muhiim kamida regional approach-ka soo hore usoo sheegnay system-gana waa raacsin karaa kan kale regional-ka waa raacsin karaa providing knowledge of what structures are feasible waxay naga caawinaysaa surface anatomy-ga marka waxyaabaha marka noo muuqda structures qofka bini'aadamka jirkiisa asagoo aanan waxba ku sameynin oo hor fadhiyo waxyaabaha marka nooga muuqdo okay si kala hadaan lahayn palpable waxyaaba la taaban karo perceptible to touch yani la taaban karo in living body jirka marka qofka bini'aadamka ee nool at first markuu qofka rest u fadhiyo yani in action markuu marka shaqo qabanayo ama uu socdo okay harakaad sameynay the physical examination of patients is the clinical extension of surface anatomy physical examination qofka lagu sameeyo waa clinical extension waa marka baaritaan ama clinical extension soo muuqdo oo surface anatomy uu nasiyo in people with stab wounds dadka marka stab wounds ama marka ay soo gaartay jugta okay oo marka ay tusaale ahaan kala knife muddiyo kala gashay for example the healthcare worker must be able to visualize deep structures that may be injured waa inuu marka sheegi karo healthcare worker-ka ama dhakhtarku inuu sheegi karo middu meesha ay gashay structures-ka ka dambeeya ay ku tagi karto dhaawac karto waa inuu yani asagoo u tagin waa inuu qiyaasi karo taa waxa ka caawinaya surface anatomy qaabka labaad ee baran karno anatomy waxa weeye systemic
systemic approach waa qaabka hore loogu daraasan jiray inta badan laakiin hadda laga wada guuray mostly. Systemic approach studies the body based on systems. The collective organs that make up a system are studied in this approach. marka organskii hal system sameeyo ayaa isku mar la baranaya. Tusaale ahaan kale alimentary ama digestive system waxa laga bilaabayaa afka maxaa la dhahaa organska ku xiga sida esophaguska, stomaga, intestinekii, anuska saasa loo baranaya. marka waa systemic approach. Example, when studying the circulatory system, the heart, blood vessels, and lymphatic vessels, lymph nodes are studied together. And lymph nodes ayaa marka la isku baranaya as whole. The basic system that makes up the human body. Systemyada marka basic ee jirka bini'aadamka sameeyo waa 12 soo socoto. midka koowaad waxa weeye integumentary system oo ah habdhiska marka oo maqaarka iyo cidiyaha iyo timaha. kan labaad waxa weeye the skeletal system oo ah habdhiska marka qalfoofta. iyo kan saddexaad muscular system. kan afraad waxa weeye nervous system oo ah habdhiska marka neerfaha. kan shanaad oo ah the circulatory system oo ah habdhiska marka qulqulka dhiigga iyo lymphaticska. lympha kan lixaad oo articular system waa marka kala goosida iyo marka cartilageska. iyo kan toddobaad oo ah alimentary and digestive system ayaa dhihi kartaa. kan sideedaad waxa weeye respiratory system oo habdhiska neefsashada. kan sagaalaad oo urinary system ka habdhiska marka kaadida iyo waxa la xiriiro. tobnaad oo genital system oo habdhiska marka taranka. iyo kan 11aad oo endocrine system oo habdhiska marka qanjirada iyo dhacaamada soo daayo. qaabka saddexaad oo baran karto sidaan soo sheegnay waxa weeye clinical. This is also referred to as applied anatomy. sidoo kale kan waxa la dhihi karaa applied anatomy ama clinical anatomy Allah. It is taught alongside with any of the above approaches to anatomy. yani mid kasta ee kuwaan soo sheegnay regional kan soo sheegnay iyo systemic kan soo sheegnaba ayaa lagu dhex dari karaa regional iyo systemic gaba. It emphasizes aspects of structure and function of the body important in practice of medicine. marka wuxuu xoog saaraya clinicalka shaqada iyo marka muhiimadda uu leeyahay structurally qaybta marka aan ka hadlayno practice of medicine oo laga wado marka cudurrada marka ku dhici karo ximintaas. Dentistry and allied health science kaba ayaa loo adeegsadaa applied ama clinical anatomy comprises both regional and systemic approaches. aad ayaad mahadsantihiin lecture-keena maanta intaanu ka egyahay. waxaan rajeynaa parts kale protection iyo qaybaha ka dambeeyana la socon doontaan. aad mahadsantihiin wixii fariina noo soo reeba oo maxaa la dhiirigelin iyo waxyaabaha aad jeceshiin inaa markaas saxno.